way halkan uu sheego casharka oo diyaarsan kulli waa idin soo diraya aynu intan dul marno casharkeenu ku saabsan yahay hababka kala gedisan ee ay suugayahanadu u maraan fahansiinta dadka ay wax u sheegayaan qofka bini'aadanka ah maskaxdiisa aqoon baa ku jirta aqoontaas inta saalahan flash ugu soo shubayo qofka sida computerka loogu shubayo aqoon kasta oo maskaxda bini'aadanka ku jirta waxay ku soo gashaa oo ay soo martaa dareenada kala gedisan ee uu leeyahay tusaale ahaan inuu cadalku udgoon yahay halkeebaynu ku ogaanay sidaasay maskaxda ugu jirtaa soo maha waayo in roobka iyo doogga iyo waxyaabaha noocaas ay qurux badan yihiin xageebaynu ku ogaanay dareenka aragga sidaasay maskaxdeenna ugu jirta inuu malabku macaan yahay ama ay dacartu qaraadhahay halkeebaynu ku ogaanay carabka soo maha dhalanka sidaasay maskaxdeenna ugu jirtaa markaas suugayahanadu marka ay maansooyin tirinayaan waxa ay fahamkooda soo marayaan mid ka mida shantaa dareen ee bini'aadamku leeyahay waxaa jira dareen kale oo la yidhaahdo dareenka lixaad afka ingiriisiga waxaa lagu yidhaahdaa extrasensory perception afka soomaaligana waxaa lagu yidhahdaa garbasalaha marka innagu waxaynu ka hadlaynaa shantaa dareen ee caadiga ah tusaale ahaan waxay inoo qoran dareenka koowaad oo ah maqalka dareenka maqalku waa ka ay maskaxdeenna ku soo gasho aqoonta ugu faraha badan leh ee ku jirta tusaale ahaan waxaynu haynaa soo maaha ilaa nebi aadan abuuritaankiisii ilaa nebi nuux huud yuusuf ilaa nebi maxamed marka taariikhda islaamka laga warramayo waxaynu haynaa cigaal shidaal iyo juxa waxaynu haynaa diin iyo dacow waxaynu haynaa boqorradii alraweelo dadkaasoo dhan miyaynu aragnay dadkaasoo dhan maynaan arkin marka aqoonta ugu faraha badan leh ee ku jirta maskaxdeennu waxay ku soo gashay halkee dareenka maqalka maqalka waaye amwaanada adeegsaday in ay dareenka maqalka dadka wax ku fahansiiyaan waxaa ka mid ahaa abwaankii weynaa allaha u naxariistee raage ugaas samatar fooljeex abwaankaa weyn abwaan raage ugaas bilgoor waxaa la yidhi gabayga wax halbeeg u ahaa inuu odhan jiray hoobaalaaye hooy markaa raage ayaa wuxuu yidhi hoyaalaaye hooy waxaa la yidhi raago maxaad uga jeedaa hoyaalaaye ujeeto wuxuu yidhi hooyaalayay gabayga way ugu horraysaa ee halna kama tirsana maase ay soo hargelisaa yacni wuxuu ugu talagalay in dareenka dadka lagu soo jeediyo inta aan gabayga la bilaabin si ay u dhegaystaan markaa raage wuxuu ka mid yahay halabuurka soomaaliyeed kuwii ugu horreeyey ee maansadooda la hayo wuxuu noolaa qarnigii 19aad ama intii u dhexaysay 1800 dee taariikhda soomaalida wax badan waxay u lumayaan wax la qoraa may jirin raage iyo rodkiisiibaa ah cidda koobaad ee suugaanta ay tiriyeen lahayo waa la yidhaha taariikhaan raage ugaas warfaa wuxuu jeclaa gabadh dadka qaarkoodna ay faadumo ku sheegaan qaarkoodna ay xadiyo ku sheegaan dumarka marka la ammaanayo waxay leeyihin darajooyin kala sarreeya oo tusaale ahaan gabadh waxa laga yaabaa inaad maqashaan in leeyahay gabadhaasi waa gaari gabadhaasi waa gaari waxaa looga jeedaa waa gabadh gurigeeda iyo nadaafadeeda iyo soomaha ay aad u heer sarreeyaan waayo gaariga waxa ka heer sarraysa dhabeel gaariga maxaa ka heer sarraysa dhabeel baa ka heer sarraysa dhabeeshu waa gaari garashale dhabeeshu waa maxay
وقاري كرشلة وقبرنا سمعت حاج ويرى كل بالهوشية تكون يسأل إمك حقبسنا وصيّرنا في سوها قبوا وهدوا ما فد أقول كذا أوكي عادي أقول في عنها وحكاسي سريسة أن قريد بكسي سريسة قريدو وقبر قاري وقول كذا الذي فيه أو نبيل أو كرشية نلافت سكوتر سرتي أو قريد أو لا حريرين قيل كرتها كني كرجع حدي أنا مقنت هاي مكتي قران كشيء بحين كرتا حدي أنا أوفيس كل علين قران كرتا إنك كويس كاو شرح حريري وحلا إلى هذا قريد هو توجه هير كسرش سلا صوت هاي جدوم كل يجي حاجة كلنا درجوي كافر سما أما بصاري هلا إلى معي بصاري سماها هلا إلى بالي هلا بالي هو بصري بلاش علوك بلا كذا توقف بيسنا هو بقى مو شيء كلامنا ما بقى وقت هذا الرجل ها هتنسى بقى دي بلاد يقولون عين واي قبل ده وغير هذا بس راح قريت قبل ده وغير هذا بس راح هي قريت مركا حلية كاملة ayaa waxay yabad u doonatay reerkoodii waxay yabad ama xoolo u doonatay reerkoodii dadka intii reerkooda ay ku maqnayd ayaa waxay istilay jufadii uu raaga ka soo jeeday iyo jufadoodii haybaxaana ma way ahayn dad kala fog kawa soo qaadada inay kala deganaayeen ba hadaa doonta hargeysiga arabsiya ama hargeysiga tawacadu somehow ma way ahayn dad kala fog تتعرض بالعضو اللي يسوق بحواي عرض بالعضو هي ولا يسوق بحواي واي مركي مداري شوكتي أي ما أنت تنبقى تري ورياه تري إنك استليت رجوا أنا كنين كيجي هلا يجي بيتي تهاي الناس وعرض ومزعم كرينين بيا جلسوا بتشوف كان كمان حرام يسوون كيجي دولي والله بيجي سما قلبي نقطة حبين بعد تلسان مبحي حبين يا لسان مبحي مركي أي مريين مالكم يقولوا يرهاجوا وتشوفي عيالي بعضهم يا ما حد يجي أي نعاو هالكاس كسحنو لولكو هو اللي باحي لولكو هاي هو اللي باحي واحد المشنقة دي راجوا هالكاكم حسنا هالكاس سحنيا ولا نيجي يجي هاليجي بيتي أنا نيجي هاليجي بيتي لما تكدينه ولا نعرفي بها اللي بقى حلا انتو سوق ودي فاضو اما حديو رباو كلا جري halkii way ku dhimatay dabada raagay gabadha wuu jeclaa gabadha garashada la weehayd ee qariyada imka qariyada haddii heesaa qaar ku maqashaan heestu weersame sameeyay soo qariyadii haweenkay kuma jirto wadarajadii ugu sareysay way wuxuu shabahayaa raagowgaas taahii habeenka ka baxay iyo halka laga soo maqli karay uu shabahayaa marka si taahiis u bumbuuniyo ama u sheego wuxuu sawirayaa codad aynu dhabta ku garan karna halka laga maqli karo wuxuu ku bilaabayaa sida koorta iyo cud oo la sulay koromo buubaala raaga wuxuu isticmaalay ereyeen koor soomaa maaleen buu yidhi aleen mool aleen kuwa ka yar soomaa marka koortu waa dhug way wuxuu isticmaalay inaga koortii geedkee yucub waxa la yidhaha koorahana waxa ugu wanaagsan kooraha lebiga laga sameeyo kuwa yucubka hee laga sameeyo marka waa dhug way yaa la sulay ma neef hal ah mise awr baa la sulay somaa korona way weliba koromo ayuu yidhi ma awr ayaa socda ayaa la sulay mise buubaal ah oo didaya somaa buubaal oo kay didaya marka waa dhug waxa laga soo maqli karaa koorta iyo cuntada sulay awrka halkee meel fog
عاد هنا ده كورته waxa loo soo soo maasi loo gartaaqay geel maray si geel loo garto geel halka uu maray wuxuu yiri ama beelo kaynaan oo kor u hayaamaya reerku wuxuu ugu qaylo badan yahay markuu guurayo reerku wuxuu ugu qaylo badan yahay markuu guurayo subaxii odayga tiraaba oo wuxuu yiraahdaa raay wiila ereyga tiraabaalku ku soo jeedo hore soo sheegay marka halkan de magashi waa ka qaylinaya halkan ciyaalkii halkan riihii halkan geelii marka reerku hadduu ugu qaylo badan markuu guurayo ma reer buu yiri mise beelo dhan oo weliba kaynaanka waxa la yiraahdaa rarka ama geediga la galo xilli ay colaadi jirto rarka ama geediga la galo xilli ay colaadi jirto ama dadku shaqada aad ha u badiyaan si colka ku soo maqalin ay shaqada jawaab fara badan iska celin kara ama jabaqada ha u badiyaan iyagoo degdegayde imanka qofku markuu degdegay marka kale isku shanqar ma ama beela kaynaan oo kor u hayaamaya ama geelka reeb oo nirgaha laga kaxaynayo geel markuu ka reebay nirgaha laga kaxaynayo halka nirigtiiba ka soo yuusaysa Soomaa halka hashiiba ka soo way ama ceel karkaarada jabshiyo wabi kala dhaafay biyuhu markay soconayaan doox oo kale iyo soo shanqar ma sameeyaan fara badan biyuhu soo soconayaan shanqar fara badan wuxuu leeyahay sidaan hay waxaas xalay korola ay maladin kaamil reeru taahii ga waxay habeenka dhigay fadna libaxnay reero dhan meesha dumarku iyagoo walaalaha laga yaabaa haddana in ay kartida ku kala fiicayeen sheegay markii dambe gabadh baa la siiyey baa la yidhi inantii hore ka yarayd ee xadiya ama faadumo dadku ka calacalay naaso xaliime xadiye xaalna kuma gaadhid buu lahaa moogta naaso xaliime xadiyo xaalna kuma gaadhid buu lahaa way dareenka araggu waa kalabaad ee maskaxdeena ay ku soo gasho aqoonta ugu faraha badani halkan indhaheena waxa ku jira soo maaha wax afka ingiriisiga lagu yiraahdo photoreceptors indhaheena maxaa ku jira photoreceptors ogaadayaasha ilayska falaadha ilayska ay ku dhacaysa kadibna maskaxda loo gudbinaya maskaxdu way turjumaysaa waxaad aragtaa waa kursigii waxaad aragtaa waa qofka waxaad aragtaa ardaygii way Soomaalidu tay waxyaabaha ay quruxda u taqaano wax kamid ah roobka iyo doogga iyo Soomaal iyo barwaaqada way marka halaburku markuu doonayo inuu qof quruxdiisa de sheego wax qurxoon ku sheega Soomaal laakiin waxa qasaba in qofka la hadlayo waxa quruxda lagu sawirayo noqdo qof indhale oo wax arkaya imanka haddii tusaale ahaan sidii cirku hore meel cusub loo cadceedi ku soo baxaatay Yuusuf Xajaadan baa yidhi sidii cirku hore meel cusub loo cadceedi ku soo baxaatay cirka da'aya roobka cadceedda dhinaca galbeedka ka soo baxday qaansada doogga waxa garan kara qof indhale Soomaa haddii kale waxa oranaysaa oo cusubku muxuu ahaa oo dooggu muxuu ahaa oo balaga cadceeddu maxay ahayd ilaa qof aan weligeed waxba arkin way abuu xasan qowlo Yuusuf baa isla wuxuu yidhi sida haragin dhimanoo biyo galac ka leeyiin geestaana dooggiyo ubixiis gaadheen laga guurin weligeed waxaa tahay gedeedii quruxda biyuhu qurux bay leeyihiin waa loo dalxiis tagaa waa loo daawasho tagaa doogga midabkiisu waa noociyey waa akhtar midabka cagaaranina waa kay ishu ugu jeceshahay imanka halkaa uu doogga ka isticmaalay hadduu odhanaa geestaana cawskiga ka waran cawsku ma qurux buu leeyahy waa dee doog qalalay soo maaha geestaana dooggiyo ubixiis gaadheen laga guurin weligeed waxaa tahay gedeedii dareenka saddexaad waa dareenka urta dareenka saddexaad waa maxay
ودرينك أورتا سنكين وحنا كويا أوجاديال لا يلاحظوا صالحا وكيما ريسبتريس أما الفاكتوري سالس وأوجادياش أورتا waxay ogaadaan urta intaas oo wax oo shay laakiin waxa laga yaabaa in ay si fudud u daaraan saynis ahaan oo taalaha diimka qofka ay uri aad ugu baxda 24 saacadood marka tan caadi uu shaqada qabsanaya Soomaa laakiin qofka cusub markiiba uu dareemaya waxaan xasuustaa mar ay noo dhaweyd xiriirkii hore ee xagan ayaa maalmaha qaar baad dabaysho xaggan ay soo dhacay saxaafadiina ama dhinaca kale marka qaar baan kubadku ag ciyaari jirnay saan suulaan dad caadi ah tii ayma markaan ka baxna meeshii ma garmadayda ursanaayo shaw qarmookii xiriirkii baan ugu nisaaray waxa laga yaabaa xafladaha ku dhow inay dareemin laakiin qofka jihada ay dabayshaas u dhacayso soo mara in markiiba dareemayo waxa jira waxyaabada sanku jeclaysto waxyaabo sanku uu jeclaysto iyo waxyaabo uu nacbaysto imanka saxada iyo roobka iyo udgoonka iyo xaas uu jecel yahay sankeenu way wax ku yarba laakiin marka ingiriiska la joogo waxa laga yaabaa in udgoonkaas iyo roobka xaas waxa aad loo jeclaysto waayo inta badan iyaga cimiladoodu waa noocay way roobanta waxba daayo Soomaa how is the weather was something leeyihiin way abwal حسن عبد الله حسن قريبه وحسن هيش لا يلاحظوا سيلا وكذا ورمي قرصه بابور كعه wuxuu ku soo gabagabeynaya saylo guyaal badan soo baxa kaliishiisa sidoo uu soo wado wuxuu leeyahay marka dambe intuu ka soo waramo sideedaan jaleecada saxan saxo udgoon badan sanka kula raaca Soomaa waa wax udgoon marka la leeyahay sidii u bixi udgoon badanay arooryada hore daruuran kadiyo ufada roobku way udgoon tahay way dareenka afraad waa dhadhanka carabkeena waxa ku jira ogaadayaal la yiraahdo chemoreceptors waxay ogaadaan dhadhanka afar shay oo kala duwan oo kala ah macaanka qaraarka dhanaanka iyo dhadhanka caanta ka biyo kale aan midna ahayn waxa la yiraahdo waa xamd afarta dhadhan ay kala gedsan bay ogaadaan marka waxyaabaha qaarday in ay tusaale ahaan fiican yihiin dhadhankeena inuu ka ogaanaa Soomaa shaqada koowaad ee afku uu qabto marka cuntada la geliyo wuu dhadhamiyaa Soomaa carab haddii wanaagsan tahay marka waa la calaaliyaatay haddii kalena waa la tufayaa la sii wadi maayo way waxaan uga jeedaa waxa jira dhadhanka waxyaabo fara badan oo dee lagu ogaado tusaale ahaan abwaankii weynaa cumar xuseen karshe cumar Australia ayaa wuxuu leeyahay isagoo sifaynaya dhadhanka wanaagsan ee caanaha ay leeyihiin dhowr caano laga soo liso yarahee dhalanaaday nin la dhamiye wuu garanayaa dhulay qaboojaane goorta dhantaabaa jidhkaba dhidku qooyaayo waxa dhaba habeenkaa ninkii dhama golxoodkeeda dhalaannimo qodxii kugu mudaa kaaga soo dhacay dhalaannimo qodxii kugu mudaahe kaaga soo dhacay buu leeyahay way abwaanada kale adeegsada waxa ka mid ah abwaandheeg nin dhadhamiye wuu garanayaa dhulay qaboojaane wey abwaandheeg tusaale ahaan iyadoo sheekada la isdhaafsanaya ay tahayba jacayl ama rabitaan laba qof iyadoo sheekada la isdhaafsanaya ay tahayba rabitaan laba qof ama jacayl ayaa hees ay wada qaadayaan labadaba loo naxariistay kulciyo magool ayaa inantu waxay odhanaysaa iyadoo nolol waan ku jecelahay ama waan ku caashaqay ama waan ku rabaa ama isguursano ayaa waxay odhanaysaa inay yahow dushaada laygu daadshay malabo qofka marabka loogu daadiyay ka warrama
والله معاني سما بيوكتجيا مرة يسوون كأروان كديدي يكون مرة يكون بوشان يحبطنا أيوم بوشين بريورنيا إلى هيدو شغال لي مريض عرب قاق ويمشى قاق أنا كاين لقيت الشغلة واي درجة سنة ومغار درجة سنة مغار هو حكيت له وقال لي فربنا وقال له في بكرة جدا واحد يقول على مغار واحد بنت غبر على جد كنا علاج تابشرة كلك قبوجة حنون أنت أصدق عنها الكبير كوجا مغار واحد بنت غبر على جد كنا هذا مرة ذيك سنة وحكم ذني له قعمته حاد مكان صوح صوتوا حاضر يقول لك حاضر طاضي مركز يقول شعري سنة قعمها حاد لسه ما ركض وهي بريقوا على الصومالي وحن مرقان كبحبار مرقان لقد هلك يوحى لقى مرقان beelaha qaarkoodna may cabi jirin qaarnada kuwa ilbaxnimada hore haysay qaar ba cabi jirin maraq nimanka hilibka marka la kariyo maxaa soo baxda maraq reera qaarna fuud bay oran jireen ma cabi jirin qaarna way cabi jireen oo nolosha wax badan bay isbedelayeen oo bariga hore hadii la oran jiray madaxii calooshii xawaala isku caayeen ku dhalad maxay sameeyeen خلاص يوم حقيقي كلام هو هي تروبو أما طيب حمرها خلاص تروبو واي مركا نكمل هذه أنا عبي كل مرة أي أوفانا يقوى كله كل ليه هي دبلها معنا أنت مفروض كبلو كل بس بوله معنا أنت مفروض كبلو كل بس بوله دبلها يجمع معنا كلين كوش كجسية دبنا هي جماعة كلين كو إيش كجسية هلا بوردو سكستو شنطة درين أي صومران هلا بوردو سكستو شنطة درين أي وصومران لبا متبي كسعودان أما عقلي الغف إلى هذا هو حسوي عقلي الغف القلب أما واحد لا هذا عاطفة الغفك عقلي أفهم إنجليزي كم حلو ولا هيك عاطفة كم حلو ولا هات وونيه وعلى عقل وقوع أقبل السببين تونس يمكن دي صراحة شغل صحيح يسيو أولي له ويرجعنا سنة هاي ونكون كرسولين ونكون صوب حيو أنت أساسا حصل لي دقيقة ستة شغلة وقت تصير امتحان كده واحد هذا عقل جي غفك لكن هذاك هذا بالعمل ما له بريان غير كتاب موجود أبغى هو أكيد أنت والله أنا ما هي سكول كتاب برهان كتير يا هذا يا عاطفتي ما هذا عاطفتي وهالك واحد على تبالي وهالك واحد على وهالك الحديث طبعا واحد لكن عقل كل حساب طبعا تصارعان لما قفوا لك هذا يا عقل يا عاطفتي أيا سيد محمد عبد الله حسن بن سيد محمد وهالك عاملوا عضري طبعا دياره أيا ويرني سما دياره ويرني وحول عما ديار دورة يي عذنك كينين عركي يقول كي بس قبصدي على نقطة دي عمروا صلى لي أنا طلعين مدي هذيك هو عقل الله هي على الله هذيك هو وش عقل يقول هذا ده وحوق ربي عقل كثير ودوي هي سوا هلا برضه كلا وحكم لا waxa la yiri Ismaaciil Miraab waa ka weynaaba inuu waabtu yahay ayaa mala min ba heroode to uuriyo wax yeelatay iyadoo wala cad warkay oo kolba aan luufo intuu faysa oo ay makaynti maxaa ka sii wuxuu yiri marka isagoo u sheegay inuu gartay geeyada la fuulaan xadiyo gabadha yimuuna geeyada la fuulaan xadiyo gabadha yimuuna waxaan ahay nin garab daar leh oo galow sheegay waxaan ahay nin garab daar leh oo maxay galow sheegay maxaa gabadhu gabadhay dhashay godayda foorkaaga buulay
maxaa gabadhay dhashay godayda foorkaaga cali dhuux baa xilligii gabayda uu tirinayay isagoo qolada hadlaya oo leh geeliinii baa la dhacay doonta caadifadoodii kicinaya ayaa saddex meeris uu saddex dareen ku adeegsanaya saddex meeris ayuu saddex dareen ku adeegsanaya wuxuu leeyahay cali dhuuxee isagoo dildilihii bishiyo dacaydii haaneedle isagoo dildilihii bishiyo dacaydii haaneedle dildilaha bishu waa sumadii soo laha dildilaha bishu waa maxay waa sumadii wuxuu leeyahay isagoo sumadiisii aad garanaysaan oo indhihiinnu ay arkayaan oo wada dululucahayuu oo wada dululucahayuu idin ag daaqaaye oo wada dululucahaya dululucuna waa codkiisii soo maha ood maqlaysaan dululuciisii dambarkiisu waa idin uraa waana dabataane idinkana ugaarhsantaad si bedeshay ugu leey caydhi oo dambarkiisu marka waa ku yaacade sooma waa ku yaacay lamaad arkaysaanood urinaysaanood maqlaysaan lamaad arkaysaan oo caqligaasi dadka adeegsada waxaa ka mid ah islaamahan sitaadka tunta waxaa laga yaabaa tuduc sitaada in awoodda ilaahay ba lagugu muujiyo iyagoo sitaadka tumanayoneen balcirka tiir bira ka eeg dhulka tolliin ku yaal balcirka tiir bira ka eeg dhulka tolliin ku yaal rabbiga taladaa lebaa la hortaga rabbiga taladaa lebaa la hor tagaabay leeyihiin way halkanaynu sheegno casharka oo diyaarsanno kolley waan idiin soo dirayaa aynu intan dul marno casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay hababka kala gedisan ee ay suugaanyahanadu u maraan fahansiinta dadka ay wax u sheegayaan qofka bini aadanka ah maskaxdiisa aqoon baa ku jirta aqoontaas inta tusaale ahaan falaash lagu soo shubabaya qofka sida kombyuutarka looguma shubayo aqoon kasta oo maskaxda bini aadamka ku jirta waxay ku soo gashaa oo ay soo martaa